ugaaska guud ee beelaha Isaaq Ugaasaybe Muuse Maax ayaa maanta mar uu la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan isagoo ku sugan magaalada Hargeysa ka hadlay saameyntii ay keentay masiibadii dabka ahaa ee haleeshay suuqii weynaaye magaalada Jigjiga isagoo qanacsatadii halkaasi ku hanti weeyay masiibada dabkaana ilaahay uga baryay inuu ilaahay badal khayr qaba ugu bedelo ee sidoo kale Ugaasaybe Muuse Maax ayaa ku booriyay talaabada wanaagsan ay qaadeen mas'uuliyiinta ugu horeeyay maayirkii magaalada Hargeysa iyo janankii ciidamada debdemiska Jamhuuriyadda Somaliland isagoo ku amaanay talaabadaasi mid ay wax isku ahaashaha ee bulshada ka dhaxeeya labada dal ee dowladda deegaanka Itoobiya iyo Somaliland ay ahayd waajibna ay guteen isagoo uga mahadceliyay gurmadka degdega iyo sida ay u garab istaageen bulshadii baqtiinaysay suuqaasi weyn ee magaalada Jigjiga maanta halkan waxaan ku qabanayaa shirka sharaa'id oo daaran masiibada dabka ee ku habsatay magaalada Jigjiga caasimadda dowladda deegaanka oo aan la dareenahay ummadda ganacsatada leh deegaanka leh ee ku dhacday masiibada dabka ayaan ka damqaday oo la dareenahay ilaahayna waxaan u weydiinayaa in cawil degdeg ilaahay ka siiyo dabku waa masiibo qadarka ilaahay baa keena oo waa wax ilaahay keeno lagu samrayo laakiinse waxaan la garab taaganahay murugada iyo dareenka iyo waxay qabaan maanta ay taagan yihiin baan la dareenahay oo aan kula damqanaya ilaahayna waxaan uga baryayaa in cawil degdeg ilaahay ka siiyo cid kasta oo ka gurmatay oo u samaysay garab istaagna waan hambalyeeynaya waxaan kaloo hambalyeynayaa maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo taliyaha ciidanka dabdamiska Somaliland oo iyaguna si mugyo miisaan leh uga gurmaday oo walaalnimo oo Soomaalinimo oo jaarnimo uga gurmaday sharaf iyo karaamaan dushooda insha Allah ha dhigo cid kasta oo ka gurmatay arrinka anna waan hambalyeynayaa iyagana waxaan leeyahay qadarka ilaahay baa keena laakiinse waxaan idin weydiinaynaa samir iyo iimaan iyo saadiqan ilaahay idin weydiinaynaa waxaan kala aan ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaya anigoo ah ugaaska guud ee beelaha reer Sheekh Saxaaq waxaan leeyahay dabku waa masiibo walaaladeena dowladda deegaanka ee caasimadda Jigjiga waxa ku habsatay maanta masiibo dab hal iskarab taago Soomaalinimo hal isku garab taago muslimnimo hal isku garab taago waa walaalaheennii waa meesha koobaad ee Soomaaliya maanta shanta Soomaaliyeed ku midaysan tahay ee sharaf iyo karaamo ku leedahay maanta masiibo ku dhacday hal iskarab taago qof kasto Soomaalinimo ku jirto oo walaalnimo Soomaaliyeed ku jirto oo in waxaan fariin uga dirayaa inuu iskarab taago haday tahay duco iyo haday tahay naf iyo haday tahay taageero iyo haday tahay maal baa la iskarab taagan leeyahay aad baan uga xunnahay masiibada halka ku dhacday ilaahay baa keenay ilaahay qadarka waa rumaysanahay laakiinse ilaahay cawil degdegan way u weydiinaynaa iyaga iyo dhamaantood insha Allah bismillaah kariim waxaan kula loo dareenay madaxweynaha dowladda deegaanka Mustafa Maxamed Cagjar oo dalkiisii iyo maanta deegaankiisii ay ku dhacday masiibadaasna waxaanu la qaybsanaynaa dareenka murugada leh oo aan ku garab taaganaanu kala midnahay waxaanu leenahay cawil madaxweyne ilaahay ka siiyo